waxaanoo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno markabka israa'iil ee lagu qarxiyey xeebaha khaliijka carabta ama gacanka faaris israa'iil oo ku eedaysay falkaa inay iiraan ka dambayso iyo tehraan oo ka aamustay macluumaad kale ayaa raaci doona ku soo dhowaada barnaamijka maalmo uun ka bacdi markii ay soo baxeen xogo dhanka sirdoonka ah oo sheegayey in iiraan ay qarxisay markab shidaal siday oo israa'iil lahayd oo marayay xeebaha marinka khaza taasina ay sababtay shidaalkii badnaa ee xeebaha israa'iil maamusho isku daboolay toddobaadkii hore oo israa'iilna ay u ekayd inay xilligaa qarsatay jabkeeda oo ay fadeexad ka baqday mar haddii xeebihii ay maamulaysay lagu qarxiyey maraakiibteedii shidaalka ayaa haatan mar kale waxaa soo baxaya in iiraan ay qarxisay markab labaad oo israa'iil leedahay oo isna ah markab xamuul kaasoo ka sharaacday xeebaha sacuudiga kuna sii jeeday dal isla qaaradda aasiya ka tirsan israa'iil waxay sheegtay inay rumaysan tahay inay iiraan ka dambaysay qaraxii lala beegsaday markab xamuul oo ay leedahay oo marayay biyaha khaliijka carabta milkiilaha shirkadda faysal ayaa waxa uu sheegay in ay u badan tahay inay waxyeellada geysteen gantaalo ama miinooyin laakiin aanay u badnayn in loo bartilmaameedsaday israa'iil inay leedahay dartay saraakiisha israa'iil waxay rumaysan yihiin in iiraan ay ka dambaysay qarax lala beegsaday markabka xamuulkaa warbaahinta israa'iil oo soo xiganaysay saraakiil israa'iiliyiina oo aan la magacaabin ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in iiraan ay mas-uul ka tahay qaraxii habeennimadii jimcihii dhacay kaasoo aan carqaladaynin socodkii markabka ama dhaawicin shaqaalihii la socday laakiin ku qasbay inuu u soo leexdo xeebaha si loo dayactiro kadib dhaawacyo soo gaadhay aagga uu qaraxu ka dhacay oo ka baxsan xeebta iiraan ee laga soo galo gacanka bershiya waxaa ka dhacay qaraxyo isdabajooga sannadkii xilligaasoo ciidanka badda ee maraykanku ay ku eedeeyeen qaraxyadaasi jamhuuriyadda iiraan oo iyadu ka soo hor jeeda ama ka soo hor jeegtay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump qaraxan lala beegsaday markabka israa'iilna waxa uu yimi iyadoo xiisad sare ay ka dhexe ogan tahay iiraan iyo maamulka jo baiden oo ay xukuumadda maraykankuna qaaday tallaabadeedii militari ee ugu horraysay habeenkii khamiista taasoo ka dhan ahayd maleeshiyaad iiraan taageerto oo suuriya ku sugan iyadoo washington sheegtay inay weerarrada kaga jawaabaysay weerarro lagu qaaday ciidamada maraykanka ee ciraaq ku sugan iyadoo iiraan ay si kulul u cambaaraysay weerarrada maraykanka waxaa jira warar iskhilaafsan oo ku saabsan in iiraan ay ogeyd in markabka laga leeyahay israa'iil iyo in kale wargeyska haartees iyo kanaalka 13aad ee telefishinka israa'iil waxay ku sheegeen in iiraan aanay wax xoga ka haynin in markabka laga leeyahay israa'iil inkastoo mulkiilaha markabka iyo warbixinno meelo kale laga soo xigtay ay sheegayaan inay u badan tahay inaanay iiraan ogayn ama waxba kala socon in markabkaa laga lahaa israa'iil iyo in kale qaraxa oo aan weli la faahfaahin waxaa ku dhaawacmay mid ka mida shaqaalaha markabka oo tiradoodu ahayd 8 qof laakiin waxaa lagu qasbay dekedda u dhoweeye dubay inuu ku leexdo si loo dayactiro markabka ay dhibaatadu haleeshay waxaa lagu magacaabaa mv helos horey oo ah markab xamuul oo watay calanka bahama islamarkaana xamuula oo ka goostay deked ku taalla sacuudi areebiya kuna sii jeeday singabur xog ururin ay leedahay qaramada midoobay ayaa waxaa lagu ogaaday mulkiilayaasha markabku inay yihiin shirkad fadhigeedu yahay taalabiib oo lagu magacaabo ray shibin limited abraham ungar oo 47 jira oo loo yaqaano rami waa aasaasaha shirkadda ray shibin limited waxaana loo yaqaanaa mid ka mid a ragga ugu taajirsan israa'iil wuxuu hantidiisa ka sameeyey maraakiibta iyo dhismaha warbaahinta israa'iilna waxay soo tebisay in ungar uu aad ay isugu dhow yihiin yuusi kohin oo madax ka ahaan jiray wakaaladda sirdoonka ee musaad ungaar waxa uu sheegay inaanu garanaynin dhab ahaantii waxa ka dhacay markabkiisa laakiin waxa uu sheegay inay u badan tahay in waxyeellada lagu gaadhsiiyey gantaale lagu soo riday ama miinooyin laga sii saaray meelihii uu soo maray ungaar waxa uu sheegay inay u badan tahay inay xidhiir la leedahay weerarradii hore isagoo weerarkiisana ku tilmaamay mid xidhiir la leh weerarradii hore ee maraakiibta lagaga qaadi jiray aaggaasi
isagoo la hadlayay wargeyska The Times of Israel ayaa mulkiilaha markabkaasi waxa uu sheegay inuu u malaynayo inay tahay qayb ka mid a ciyaaraha u dhexeeya Iiraan iyo Maraykanka taasoo ah buuli sababta ay Iiraan u duqaynayso maraakiibta reer galbeedka ee halkaa maraba. Ungar ayaa u sheegay kanaalka 13aad ee telefishinka Israa'iil in shaqaalaha markabku ay maqleen qarax dabeetana la arkay markabka oo dalooshamay. Israa'iil si degdeg ah ugama hadlin qaraxan jimcihii dhacay tan iyo markii la dilay Fakhri Saadana oo ahaa saynisyahan reer Iiraan bishii Noofembar ee la soo dhaafay. Israa'iil waxay ka qaylinayeen qayladhaan ku saabsan cabsi ay ka qabaan argudashada Iiraan oo laga yaabo inay saamayso maraakiibteeda gobolka Maxda iyagoo weliba uga baqayay inay maraakiibtooda weeraraan ururada Xisbullah iyo reer Lubnaan iyo Xuutiyiinta reer Yaman. kanaalka 12aad ee telefishinka Israa'iil waxa uu sheegay in qaraxa uu ka dhashay gantaal laga soo riday markab laga leeyahay Iiraan. Israa'iil Global oo ah shirkad dhanka sirdoonka badda ayaa iyana waxay sheegtay inay aad u suuragal tahay in qaraxu uu ka dhashay dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn oo ay sameeyeen militariga Iiraan iyadoo Iiraan ay doonayso bay yidhaahdeen inay ku cadaadiso Maraykanka inuu xulqabataynta ka qaado lagana yaabo inay u adeegsadeen diblomaasiyad xoog leh qaab militari. الله يوعدهم عسيس وجبار وقرب عمرو في عجل مجابورو كان عابد ما ينحيك ويستنو عام حانا في عربة حليلو يحوكي وبعضانو هيستول يستقع في فيديو ولما في أقوم في عربي سيزيان في علم بارياشي حتى السبقوا عرضو ويعجرته على دي التنالو يفتحوا سيديو عرضو مثل نتيب وصو عقارسو أبو كوريديو عيبه وعدو ربو بوحشو على حتى أجني عاصمات سريعنا نبو عيني